ku soo dhawow channelka Kubadda Cagta Tube iyo sheeko ku saabsan qaabkii uu Mauro Icardi ula wareegay xaaskii Maxi Lopez. saaxiibtinimada waa waxa kaliya qof walba uu ugu kalsoonaan karo qof kale. sheekadan waxa ay ka hadlaysaa qaabkii Mauro Icardi uu ula wareegay xaaskii Maxi Lopez. Mauro Icardi iyo Maxi Lopez waxay ahaayeen laba ruux oo saaxiibo ah dadka kale isaga dhow 2010kii waxayna wada joogeen kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. weeraryahanka xulka Argentina Mauro Icardi ayaa sameeyay fal ilaa iyo hadda la yaab la noqday adduunka. wuxuu la wareegay gabi ahaanba xaaska saaxiibkiisa Maxi Lopez, mana laga filanaynin Mauro Icardi dhacdada uu sameeyay, balse wuxuu ku dhiiraday in gabi ahaanba uu la wareego Wanda Nara oo hadda wakiilkiisa. sheekadan ayaa dhacday sanado ka hor sababtoo Mauro Icardi iyo sidoo kale Maxi Lopez waxay ahaayeen saaxiibo wada joogay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria 2010kii. Mauro Icardi ayaa booqan jiray guriga Maxi Lopez oo xilligaas joogtay Wanda Nara, balse qaabkee ayay labadaani lamaane isugu soo dhawaadeen? safar uu ku aaday Mareykanka, Mauro ayaa helay fariin ka timid Wanda Nara, waxayna markaas tiri, fadlan haddii aad joogto Mareykanka ii soo iibi iPad, markaad imaadana ii keen. Icardi ayaa yiri, la yaab ay ila noqotay sababtoo islama hadli jirin ani iyo Wanda Nara, kaliya waxaan fariin wadaagi jirnay oo aan wada hadli jirnay Maxi Lopez, balse fariinta iga timid Wanda Nara waxay igu noqotay la yaab. Icardi isma celin oo kuma fikirin mustaqbalka iyo guriga saaxiibkiisa Maxi Lopez. talaabo ayuu sii qaaday oo inuu fariimaha kaga jawaabo Wanda Nara, sababtoo kaliya kuma ekeen fariimaha iPad ii soo iibi. markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Milan oo safarkiisa uu soo dhameystay, Icardi talaabada ugu horeysay ee uu qaaday ayaa ahayd inuu la kulmay Wanda, wuxuuna u geeyay iPad-kii. sheekadooda waa ay sii socotay, marba marka ka dambaysa waxa ay wadaagayeen fariin qoraaleedyo. Wanda Nara ayaa mar kale ka codsatay Mauro Icardi inuu safar u raaco iyada, Maxi Lopez iyo wiil kale oo ilmaadeer ahaayeen iyo gacalisadiisaba. taasi waxay ka dhigan tahay in Mauro Icardi uusan gacaliso wadan ama xaas wadan. safarkaas ay wax walba ku soo gabagaboomi doonaan jasiirad yar oo ku taala gudaha Talyaaniga ayna aadeen. Maxi Lopez ayaa dareemay isu soo dhawaanshiyaha xaaskiisa iyo Mauro Icardi, wuxuuna go'aansaday inuu ka gaabsado kadibna uu ogaado sheekada halka ay ka jirto. soo dhawaanshiyahoodii ayaa sababay in Maxi Lopez iyo gabadha la yiraahdo Wanda ay kala tagaan maadaama muran badan soo kala dhexgalay. Icardi uma sugin xitaa waqti kooban, wuxuu bilaabay in noloshiisa uu la sii qaato gabadha la yiraahdo Wanda Nara. aad ayuu uga xumaaday Maxi Lopez uuna ka carooday, xitaa wuxuu gooyay saaxiibtinimadii ka dhaxaysay isaga iyo Mauro Icardi. Icardi wuxuu bilaabay inuu isku soo sawiro caruurta Wanda Nara ay u haysay Maxi Lopez, kadibna uu soo dhigo barihiisa bulshada. Maxi Lopez ayaa ka hadlay arrintaas, wuxuuna sheegay inuu joojiyo Mauro Icardi sawirka uu la soo galayo caruurtayda, kadibna uu soo dhigayo baraha bulshada. midaas uma dulqaadan doona ayuu yiri. Wanda Nara
hadda waa wakiilka Mauro Icardi, labadoodina waxa ay wada joogaan magaalada Milan. Waqti adag ay wada qaateen ka hor inta aysan nolosha wadaagin. waxaa dhacday Maxi Lopez iyo Mauro Icardi inay ku kulmaan ciyaar dhexmaraysa Sampdoria Inter Milan. Maxi Lopez ayaa markaas diiday inuu gacan qaado saaxiibkiisii hore ee Mauro Icardi. Saxaafadda waxyaabaha ay qoraan iyo hadalheynta waxaa ka mid ah in tani markaas Mauro Icardi xitaa laga joojiyay ama laga quustay inuu u ciyaaro xulka qaranka dalka Argentina, lagumana soo darin ciyaartooyda xulka Argentina matalaysa koobka adduunka ee 2014. qaar ka mid ah saaxiibada Mauro Icardi ayaa ka xumaaday wixii uu sameeyay, sababtoo ah wuxuu la wareegay oo nolol la wadaagay xaaska saaxiibkiisa Maxi Lopez. waad ku maasan tahay daawashada warbixintan. fadlan subscribe dheh channelkeena Kubadda Cagta Tube, like saar muuqaalkan una share garay asxaabtaada oo la wadaag. mahadsanid.